بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينه cire oo taariikhda Soomaaliyeed wax ka bedelay taqriiban inta hadda la og yahay ee qoran inta la shaaciyay dabcan waa madaxweynihii ugu horeeyay oo xil haya oo guud ahaan gobolada Soomaaliyeed marka la fiiriyo kamid ah oo booqday Israa'iil taariikhda Soomaaliyeed hadda doonta dheh Somaliland gooni ugu irabtaa wali ma aynan helin aqoonsi إسرائيل أخوانسي كهشة تصارها مثلا لكن وحنا خنايا دول كاسي فلسطين لقى هستو قفك يجوه رأي الصومالي أو حل هايا أو أنت شاشة دل صوص صاروا للشاعية لده وحبوا خنايا دول كي أو بو خنايا طبعا محاكو كلفاية هذا ما شرح إنه محوها المهم باهي أي شيء يعني سياسيين الصوماليين inay u qabaan arintan laakiin marka si la fiiriyo falanqayaasha caalamka markay arintan ka hadlayaan waxay ku tilmaamaan ama ay ku tilmaameen yaanihi baahida noocan oo kala ah inay hog badan ku ridi karto maadaama Israa'iil aynan xeerin waxba tusaale imaaraadka baahi ma qabo haba yaraatee Turkiyada baahi ma qabaan masaarida baahi ma qabto waxaan ula jeedaa baahi aqoonsi iyo baahi kale iyo wixii la midka ah intaba ma qabaan haddana sida ay tahay inta khiyaano ah ee la diiwaan geliyay ee Israa'iil ay ku sameysay ciidaas ay ka badan yihiin dhul ma gasho meel ma aado ilaa balamihi xabad kama jiraan maba fulisaba tii ugu dambeysay hadda aan xusuusto wax weeyaan Netanyahu iyo imaaraadku wuxuu ku booqday si sir ah oo la isla ogyahay imaaraadkana shib aamus adinkan aamusa sir noocaas oo kale ah kulan waxay ahayd marka sirri ah markuu arkay Netanyahu muddo kadib dantiisa ka arkay ala soo shaaciyay waxay dhahan imaaraadkan booqanayo kada iyo wixii la midka imaaraadki koodii horta waxay isku dayeen inay inkiraan inaan been weeyaan wax ka jir ma laha xafiiska Netanyahu soo u baafin kara kada markii bahashii cadaatay oo waliba sawirro qaarkood la soo dusiyay ayaa waxay dhahan ma taqaanaa Israa'iil inay saa samaysan ma ahayn balanaan wada lahayn arintan arin waxay ahayd macnaha si la isugu ogaa in la qariyo in la shaaciyo waxay ku tusaysaa inay arintan ceeb iyo kada tahay almuhiim wixii la midka ah ku xigtay ama ka horeysan waxay ahayd Masar heshiis waxa jiray aad iyo aad loo ilaaliyay oo muddo fog yaanihi xilliga Anwar Saadaad la gaaray iyo xataa la cusboonaysiin dhowr mar oo kale in ciidamada ay ka caagan tahay meeshaasi maxaan ku dhahay Philadelphia iyo areadan maxaan ku dhahay marinka Rafah iyo ciidamada Israa'iil soo xad gudbin iyo inaynan imaanin iyo kada iyo inaynan wixii la midka ah ciidamada Israa'iil way qabsadeenba waxay qabsadeen macnaha meesha ciidamadu ka caaganay masaarida intay yaabeen ay caalamka iyo looyari iyo shuruuci adul inta la isku keenay ama waxay ku biishabatay waan ka bixinaa bina ka bixinaa ugu dambeyn way dhigteen waxay dhigeen carar waa kaas aan naga saara wax ka dheh balaa xoog badan meesha soo gashay wala dagaal dhaharid yaani taageero badan haysata waa food way gelin kartaa Masar laakiin taageero haysata aad u weyn waliba marka sida ahaataba almuhim taariikhdaasi hadda kuma laabanayo dad muslimiin oo xil haya dabcan Anwar Saadaad ugu horeeyay oo booqday asagana sababa keentay xilligaasi booqasho iska caadi ma inaan ahayn sababta keentay waxay ahayd dagaal iyo dhiig iyo maxaabiis la kala qabsaday iyo maxaan ku raay intaas oo ummad ah oo ciidamo ah lagu laayay dagaalkii sida xun macnaha masaarida ugu jabeen ayuu ahaa oo hatta mar ay ku sigteen ciidamada masaarida inay qabsadaan guud ahaan iyo dawladihii kale la jiray markaasi Israa'iil guud ahaan inay qabsadaan laakiin waa laga soo gaaray oo adiga gargaar badan ay heleen marka almuhiim arinta halkaasna waa baxaya qadar waxaan u imaan doonaa ka hadli doona Trump oo maanta 80 sano jir galay iyo ceebta uu la kulmi doono iyo wixii uu filayay 80 jidkiisa maanta marka uu aad u dabaldegayo almuhiim arinta u tagi doonaa waxa akhbaar ah warbaahinta qaar ay warinayaan qadar diilkii ay Iiraan la gashay sirriga ahaa ma ahan dhiil hadda iska dhacay wuxuu dhiilkan bilowday ayadoo dagaalka oo socdo oo qadar jukeenta ay ku socoto yaani waliba dagaalka intoonan bilaaban qadar dareen waxa jiray inay qabto nimayahoona daay saasoo kale marka dagaalka intoonan bilaaban hadalay bilowday laakiin waxa kaday markuu dagaalka bilowday marka oo ay run noqotay Iiraan waa la weeraray weerarkii ugu horeysay ee Iiraan ay ku dhufatay qadar markii waxay bilowday xiriir hoose oo Iiraan la leedahayna sidaas oo kale please gaaska noo daaya oo kada noo daaya
waxaa doontaan oo intaan idin siinaynaa. heshiiskaas iiraaniyiinta ma inaan qaadan maxaa way caraysnaayeen. ugu dambeyn hadda dagaalka marka uu qaboobay ay qadar la aaday hadda waxay tiri wixii aan isku ogeyn ayaan u nimid doonaynaan inaad noo hergelisaan. sidaas oo almuhim heshiiskii ku dhacay. waxaa la saxiixi doonaa heshiiskii Iiraan iyo Mareykanka ka dhexeeyay. Iiraaniyiintu waxay leeyihiin no, it's not going to happen this day, today, on Sunday. macnaha lagama yaabo maanta inuu dhaco. sida ay leeyihiin waa sidaas. yaa dhahaya Iiraaniyiinta. saxaafadda dhan sida qoraysa weeyaan, Reuters xataa qoraysa. waxay leeyihiin waa sidaas. macnaha macquul ma ahan. ujeedada maxay tahay? Trump maanta wuxuu u dabaaldegayaa 80 jirkiisa. ujeedada waxay ahayd maanta uu ugu aadinayay uu Iiraaniyiinta pressure u saarayay in 80 sano jirkiisa dabaaldegaasi iyo alaabtii la isku soo qaado guul maanta dhaho aniga waa kaasa guushaasaan gaaray, Iiraan waa la saxiixday kada iyo wixii la midka ah. arrintii marka Iiraaniyiinta waa lagu yaqaana Iiraan macnaha yani inta khubaro ay hadashay xataa kuwii psychologiyiinta ay hadlay waxay dhaheen yani they know macnaha what they're doing. yani Iiraaniyiinta caadi ma aha. shalay ninkii carabiga ah wuxuu dhahay Iiraaniyiin adkiyaa waa dad aad u caqli badan. يعرفون من أين تؤكل الكتف. يعني وحي ماشى إيش لقعونه يعني هربك قربك ماشى لقعونه يسف يعني ويقانان مركب محي سميان مروا الباب إلي دبوا دقان هشيسك ترامب وحا كجر الدقدق عن عابي أهين محايا إلي حدا سياسيين تينو يكوك عسيهن عالم كينو يكوك عسيهن هاي حدا نوفيرسو تي ودن بيسي ودرنيد dalashadiisa hore inuu ku soo aadiyo. Iiraaniinta maanta marka waxa leeyahay waxay leeyahay anagu we have to macnaha reconsider inaan macnaha dib u fiirino kada iska saxiixin. maxaa yeelay waxa la rabay virtual ahaan in loo saxiixo si fogaan arag ah. JD Vance wuxuu joogaa Geneva joogaa. marka asagoo Geneva jooga iyo Trump oo u dabaaldegaya sanad guuridiisa 8 oo madaxweynihii ugu weynaa Mareykanka. almuhim arrimahaas la inuu isku aadiyo. لعل هدي مركا مانتا الله صحيح تصال أحان وحاكو جرا إن automatically لو فرو المريكا هرمز يا فرايا مركا إيرانين تنسيت توسي أفرايا إيران وحي هلا يسابدل كذا إن بلوغي لغا خاضو أو المريكا كخاضان لكن هل ألين وحاجرتا إيرانين تأيديدين لكن حد أخبارتا الأمة ليس إني كجرتو لكن العربية ورينيسا أنا استغل كرتا العربية لنعي وجنجرتو وحويان without fees in lacag la'aan ay maraakiibta ku maraan. arrintaasi Iiraan in badan ay diiday. waxay tiri wax ka jira malahan. meeshaan baadi naga maqneeday ahayd baadii waan helnay wax lacag la'aan ku mari doona malahan. ciddii soo maraysa lacag aan ka qaadaynaa. inta la isku ogaa intaasi. marka akhbaarta hadda sheegaysa in macnaha lacag la'aan lagu mari doono kolley waa arkaynaa. almuhim waxa marka saxiixi doono waa haddii la saxiixayo oo fogaan ahaan lagu saxiixi doono وإيش رئيس الوزراء مدحين كحيانك مريكانك JD Vance iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Baaqir Khalibaaf ee Iiraan ayaa saxiix doona. laakiin fogaan arag yani dad xusuus fadhiya ma ahan. kuwan halkaas ka soo galaan kuwan halkaas ka soo galayaan video ahaan ayadoo la isdaawanayo. waxa joogi doona Bakistaaniyiinta iyo Qadariyiinta ayaa joogi doona. labadan qolada kale way ka fiirin doontaa. maxay meeshan waa la isgaar ma saxiix saam inkastoo Iiraan kay saxiix doonto ayada haysata Mareykanka kay saxiix doona ayaga haysta. almuhim u joognaa saacadaha noo dhiman aan arkaynaa arrinta inay dhacdo. Trump in lagu daadiyo in kale ceeba ku dhici doonto weeyaan maanta sida la leeyahay haddii aan la saxiixin. intaas aan ku soo go'ay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.